siday tahay inaan u fulin. waxaan kaliya codsanaynaa ujeedadan waxay tahay mudan ra'iisul wasaare qorshihii sugidda amniga caasimadda ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane maxamed cabdullaahi maxamed iyo adiga ra'iisul wasaaraha aad nafarteen oo aad mudnaanta gaarka siiseen sugidda amniga caasimadda muqdisho. markaad annagoo ku hadlayna magaca gobolka waxaan aad iyo aad mudane ra'iisul wasaare adiga madaxda qarankaba kaga mahad celinaynaa mudnaantaas gaarka aad siiseen sugidda amniga caasimadda. intaas waxaa weeliya mudane ra'iisul wasaare sida aad diiradda gaarka u saartay guddiga amniga oo xukuumadda oo adiga aad shir guddoomisana aad ku amartay in arrinta tan muddo 90 cisho ah magaaladan oo amnigeeda isbedesho inaad u baahan tahay. mudan ra'iisul wasaare caawa ujeedada waxay ahayd barnaamijkii isaga ha dhaqangelintiisii lagu jiray muddadii ramadaanka 8 casho ahayd. waxaa lagu guulaystay in degmooyinka qaar la tago, maamulkii degmada, maamulkii waaxda, darisayntii, ururadii bulshada, hay-adihii amniga habeenba degmo lagu afuro. mar haddii muddo isbuuca la waday, la dhageystay guddoomiyaasha heerarkooda kala duwan, shacabkii daraasad ku filan la helay sida loogu baahi qabo in amniga uu yahay wax wada jir in looga shaqeeyo ay tahay. maanta waxaan haynaa taliyaashii ilaa ra'iisul wasaarihii iyo wasiirkii oo idin hortaagan oo amraya hay-adihii amniga inay guddoomiyaashii ka amar qaataan la shaqeeyaan. mar haddii meesha ay ka baxday itus itaabsii waa waxaan rabaa aniga inaan ka hadlo mudan ra'iisul wasaare 3 qodob. qodobka ugu horeeya waa abamirtaana soo fartay ama amarkaana soo buldhigtay ee ahayd 10 abriil muddo bil xoogaa hadda laga joogo oo ahayd magaalada muqdisho muddo kooban in amniga loogu dhigo. marka qodobkaas waa qaadanaa amirtaas waa qaadanay. maxaa xiga marka waa fadhiisanay muddo sanada meeshaan laga shaqeeyey. wasaaradda amniga waxaa hoos yimaado booliiska iyo nabad sugidda ayadaana inta badan magaalada shaqo ku leh. waxaan ogaanay inaan wax badan qaban karnin. militarigaan kusoo darsanay, asluubta sidoo kale. markaan hore usii socorayna haddana waxaan ogaanay maadaama sanad intaas aan kusoo shaqeynay in wax naga maqan yihin. soo jaraal bashiir sheegay waxa maqan maxay yihin. waxaan niri degmooyinkaa maqan, degmooyinka hala dhagaasho sababtoo ah meel kasta wax ka dhacaan degmo waay ama laan ama waax ama qabeelo. marka dadkii waxaas ogaa haddaan la helin wax soconaya ma leh. sidaas darteed maamulka gobolka banaadir omboor laga soo dhigay. markaan meeshaas marayno maxaa xiga doona qodobka labaad waa isla xisaabtan. ra'iisul wasaaraha waa ku dhaafa laakiin xisaabtanku waxay noqotay in qof walbo madaxaaga meelaha ku hore leeyahay. runtii caawa waxaa farxad weyn ah in intaan oo ka socota mas-uuliyiin kala duwan ama gobolka ama wasaaradda ama taliyayaasha inay isugu timaadeen inay ka tashataan sidii amniga magaalada wax looga qaban lahaa. waa wax runtii aan dhihi karo iyada lafteedu waa tallaabadii ugu horreysay ee horumarka ee wax looga qaban lahaa ee gobolka banaadir amnigiisa. waxaa kaloo aan aad yididiilo uga muujinayaa in madaxdii taliyayaasha ciidamada iyo wasiirkii iyo guddoomiyihii gobolka ay iska soo wareejiyeen awooddii ay ku soo wareejiyeen guddoomiyaasha degmooyinka. iyagana aan rajayn doono inay ku soo wareejin doonaan guddoomiye waaxeedka iyo guddoomiye laamaha haddii la yidhaahdo. waxaa muuqato dowladnimo, dowladdii ku koobneed xafiiska madaxweynaha ayaa waxaa u muuqata hadda inay shacabka gacanta u soo geli rabto. waa wixii aan sanad ka hadlaynay in marka taliyaha booliska intuu soo istaago
uu yidhaahdo waxaan rabaa guddoomiyaha laanta ama guddoomiyaha degmada in ciidanku ka amar qaato in halkan laga akhriyo awaamiir in guddoomiyaha degmada lagula xisaabtamayo degmadiisa waxa ka dhaca ciidamada degmadaas joogana isaga ay ka amar qaadanayaan waa wixii aad weydiinayseen sanadihii lasoo dhaafay maantay gacanta idinkugu jirtaa annagana qalinkii aan idinkula xisaabtami lahayna gacamaha noogu jira marar badan ayaa waxaa la lahaa gobolka banaadir waa inuu amniga ka shaqeeyaa maanta waxaa falgalay taliyayaashii iyo wasiirkii guddoomiyeyaashii degmooyinka guddoomiyaha gobolka banaadir ku-xigeenadiisii xafiiskii madaxweynaha xafiiskii ra-iisul wasaaraha golihii wasiirada waxaa loo soo jeestay in amniga magaalada muqdisho wax laga qabto laakiin waxaan rabnaa inaan ka guurno amnigii ahaa markay wax dhacaan in wasiirka ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha su-aalo la weydiiyo waxaan rabnaa su-aaluhu inay ka soo bilowdaan meesha ugu hooseysa oo ah guddoomiyaha degmada waaxda uu joogo ugu hooseysa sidoo kale waxaan rabnaa ammaanteeda idinku inaad qaadataan oo guddoomiyaasha degmooyinka iyo waaxaha iyo laamuhu ay ku tartamaan xaafad walba amnigeedu siduu yahay waxaa la rabaa inaad su-aalaha aada weydiinaysaan guddoomiyaha gobolka banaadir iyo taliyayaasha iyo wasiirada inay yihiin agabka aada u baahan tihiin iyo ciidamada aada u baahan tihiin iyo qalabkooda ma la idiin soo dhammaystiray laakiin waxaan rabnaa xaafad walba oo ka mida gobolka banaadir inuu joogo ciidan ku filan inay joogaan dad isxilqaamay oo ka socda darisaynta idinku aad awaabisheen oo qayb ka ah ciidanka waxaan rabnaa xaafad walba oo gobolka banaadir ka mid ah haddii qof cusuba ay ku soo zaawido in la ogyahay qofkaasi waxa uu yahay haddaan la ogeyna in cabsi lasoo dhigo ma rabno waktigay ahaa jirtay in magaaladana cid walba ay iska joogto qof walba magaaladana way u furan tahay laakiin waa inaan ognahay xaafad walba qofka joogto qofka ay tahay sababtoo ah hooyooyinkeen iyo walaalaheen iyo carruurteenna ma rabno inaan khatar dambe ku fiirsanno kuwii khatarta ka ilaalin lahayna waa idinka arrinka labaad waxay tahay magaalada muqdisho waa astaantii qarannimada soomaaliyeed waa magaalo madaxdii waddanka soomaaliyeed ku dhowaad 30 sano oo dalka dhibaata ay ka jirtay waad ogtihiin carruurta dalka dibaddiisa ku dhalatay marka ay rabaan inay wax ka bartaan dalkooda waxa ugu horeeya bartaan waxa ugu horeeya magaalo madaxda sidaas aheed oo idinku aad degantihiin oo carruurtiina ay degan tahay waalidkiina ay degan yihiin inaan aqbalno inaan ku fiirsanno sanad walba in dad lagu laayo annaga ayay damiirkeenna wax ka sheegaysaa haddii marka aad rabtaan inaad qarannimada soomaaliyeed dib u dhistaan in sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed la soo celiyo in waddanka horumarkiisa laga shaqeeyo tallaabada ugu horeeya oo nala ka rabo waxay tahay magaalada muqdisho oo ah caasimadii in amni laga dhigo